ورسنجل هنولادو عوضو هنرعو دالك waa la difaacanaya daanu qayb sanayn maanta waxaanu nahay mid waxaanu nahay unit dalkaygaanu difaacanayna diintaydaanu daacad u nahay waxna waanan indhaa ka laaban doonin ciddii naga maqana ha nagu dayato waxyaabo yaryar ba iska jirjira qallooc Allah inoo toosiyo cadowgeena Allah qabto ciidankan aad aragtaan waa ciidankii ka soo goostay saan idin sheegay jamhadda ismaamulka mugdiga ku jirta ee aslam markaanu aqoontoodii shiilay aragtidoodii shiilay mabaadi'doodii shiilay aanu aragnay waxa ay ku soconayaan inuu baadil cadaana yahay dalka ummadda dalkeeda iyo dalkoodaba inay si baadil ku qabsadaan kula joogaani taanu ka dhidhinay ee kaga soo baxnay number 1 taasawa ciidankan wuxuu ahaa guutada la yiraahdo gacan libaax wuxuu ka tirsanaa tidsoos taliska guud ee Hargeysa fadhigiisu wuxuu ahaa jiida hore ee nugaaleed caroolay ilaa holan inta u dhaxaysa indhaha hore ee ciidanka qolada aslam dhigatay waxaan buuraha idilaa run markaan idin sheego xabad kuma ayaan markii hore baa naga keenay haddana haddii Ilaahay raali ka noqdo waad ogaan doontaan meesha la geeyo haddii dadka alla ka dhigo DCC dib u xareynta gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyo guud ahaan ciidamada waxa weeye isaga yimid maamulka SNM waxa weeye maaragtay daba dhilifka ah ee goboladeena ama deegaanada ummadda maaragtay gobolada waqooyi dhibaato aad iyo aad u fara badan ku haya soo dhawaadaan idin leenahay waxaad timaadeen guriyihiinii dadkiinii waxa weeye maaragtay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala baan ku mahadsan idin soo nabadgeliyay wada dheer baad soo marteen inta kadib guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa ummadda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in ay waxa weeye maaragtay ayahooda ka tashadaan meel alaala meesha ay joogaan guud ahaan waxa weeye waxaan ugu baaqaynaa in waxa weeye maaragtay deegaankan Buuhoodle iyo gobolkan Cayn waxa weeye maaragtay oo hadeer noo ah guud ahaan saldhig noo ah inay waxa weeye isugu yimaadaan kooda maaragtay ku maqan keena maqan iyo keena joogaba guud ahaan intaasaan ugu baaqaynaa waad aragtaan waa ka wareegnay annaga iyo ciidankii militariga oo 117 waxa weeye isku mowqaf baanu nahay dalkayaga iyo dadkayaga waxaanu diyaar u nahay inaanu daafacno guray Ismaan Saalax Yaasiin Ismaan Saalax aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa Maxamed Casar waa soo dhaweynaynaa taliyaha xeebaha waxaanu soo dhaweynaynaa xildhibaanada Puntland oo meesha fadhiya waxaanu soo dhaweynaynaa saraakiishii hore oo odaga dhinacayga taagan dawladda noogama horreeyeen Umar Cashuur laakiin hadda waxa moodaa bahashu inay soo caga dhiganayso diyaarad baynu saarnay inaan garanayne inay diyaaradii caga dhigatay oo kursagali oo dhan meel isu raacay raxiim dadweynaha faraxsan ee dusha iska maraya ee aan niyadooda iyo dareenkooda kantarooli karayn waxaan leenahay waa mahadsantihiin xafladii weynayd way noo harsanayd saaka la soo way noo harsan tahay xafladii weynayd insha Allah annaga sheegayna madax baa inoo imanaysa moodo madhantiin soo madhamidin soo isku mid halkan soo sida ciidanka isku dhex galay isugu dhex jirtaan mise wala idigu dhex jira waayahay Allahu akbar waayahay midnimo Soomaaliya waayahay waxaan bogaadinaynaa ciidamada way soo aragnay waxaan rabnaa shacabkana inaan sida gaarka ah u leedahay xafladda ugu siino idinkana weydiga mahad celinayna garab istaagteen waa u jeednaa dareenkiina waxaanu soo qabanay hawsha ku faraxdeen waxaanu idin soo maray magaalada u soo dhex maray inaanu idin tusno isdhexgalka guusha dhalatay iyo waxa isbedelka muuqday xaflad baa la qabanayaa doorkiina leedihiin laakiin maanta waxa weeye calankaanu sugaynay samada oo ka xidigaha mid la siiyo maalinta Cabdullaahi Suzaayiri sidoo yahay eegna sareeyo ma nusqaabe ka nasiibka nasar insha Allah saasoo loo ballan